Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sidaad maanta cinwaankeena saraba ku soo aragteen, waxaan doonayaa inaynu barnaamijkeena kaga hadlo barnaamij ka hadlaya in hawsha la doonayo in imika la qabto aan dib loo dhigin iyo saameynta ay leedahay. Haddaba haddii aad doonayso inaad dhiirigelinta ogaato iyo inay wanaagsan tahay in hawsha imika la qabto, waa inaad barnaamijka la sii socotaa. Okay. كن سعيدا فريدا عش بفخر بالحياة لا تبالي haddaba haddaynu barnaamijkeena u guda galno, maanta barnaamijkeena waa barnaamij isugu jira dhiirigelin in hawsha imika la qabto ay ka wanaagsan tahay hawsha dib loo dhigaa. Waa sababta ay dad badan ku guuleysteen. Fikirku markuu kugu soo dhaco, hawsha markay kuu taalo, ma aha inaad tidhaahdo iska daa beri saa dambe ayaan qabanayaa. Hadalladaasi waa hadallada qofka guuldareystaha ka dhiga, markastana dib usii dhiga guushiisa. Balse haddii aad hawsha isla xilliga aad isku maguujiso amaba aad isku maqiiqdo, aad naftaada kalsooni siiso, isla markaana aad qabato, waa sababta ay dad badan maanta ku guuleysteen. Qof kasta oo bini aadam ah oo inaga mid ah waxa la siiyey 24 saacadood. Haddaba 24 saacadood ayay dadkii guuleysan jiray ay ka faa'iideysteen. Haddaad 24 saacadood aad isaga dhamayso nasasho, hawsha beri baan qabanayaa, dib baan u dhigayaa, 24 saacadood way kaa khasaarayaan. Waqtiguna marba marka kasii dambeysa wuu kugu soo yaraanayaa, wuu kugu soo duuduumayaa ilaa heer aad marka dambe ka gaadho inaad noqoto laazim micnaheedu waxa weeye inaad noqoto caajis. Hawshii iyo riyadii Allahna halkaad kaga hadho. Balse fikir kasta oo ku qotoma riyadaadaad leedahay, haddii uu markaa kugu soo dhaco aad isla imika qabato, waa sababta keenta inay dad badan guuleystaan. 24koodii saacadoodna si wax ku ool ah ay kaga faa'iideystaan. 24kaaga saacadood ma aha inaad isaga lumiso nasasho iyo hawl dib loo dhigo. Astaamaha guuleystayaasha waxaa ka mid ah in hawl kasta ay ku qaban jireen waqtigeeda ku munaasibka ah. Taasina ay keentay inay galaan liiska guuleystayaasha. Waxay carabtu ku mahmaahdaa at-tacab bacda raaxa, daal kadib inaad raaxaysato. Balse haddaynu raaxadii soo horreysiino oo aynu ka dhigno ar-raaxa bacda tacab, taalidkeedii ayay noqonaysaa oo waxaynu noqonaynaa qaaran guuleysan oo noqda qaar guuldareystay. Balse haddii aad soo horreysiiso tacabkii, daalkii, dhididkii, raaxadu way kuu dambeynaysaa. Waxaana noqon doontaa dadka baalka dahabka ka galay inay guuleysteen. Haddaba guushaadu waxay ku xidhan tahay inaad markasta hawl kasta oo kaa hor timaada, caqabad kasta oo kaa hor timaada, dhagax weyn oo kasta oo ka hor yaala, inaad isku maqiiqdo, aad ka horgudubto, aanad ka caajisin, aanad odhan mar kalaan qabanaya. Balse xilliga sikinka waqtiga la joogo aad hawshaa jiidho, sideedana aad u qabato, waqtigeedana aad halkeeda ku xaliso. Haddaba haddii aad akhriso diiwaanka dadka galay guuleystayaasha, waxaad ka arkaysaa in qof kasta uu haystay 24 saacadood. 24 saacadood ee uu haystay ayuu mid kasta si wax ku ool ah, si positive ah u isticmaalay. Hawl kasta oo sabab u noqonaysay, hawl kasta oo u horseedaysay inay noqdaan dadka guuleystay, inay noqdaan dadka riyadooda ka dhabeeyay, waxay sabab u ahayd inay waqtigooda bar ku habboon siinayeen, inay hawshaa dib u dhigaynin, maadaama ay sabab u noqonayso dadka guuleystay inay ka mid noqdaan. Sidoo kale dadka guuleystay waqtigooda bar ka mid ah kumay dhammayn jirin inay ku nastaan. Waqtigooda sikin, time, minute ayay uga faa'iideysan jireen. Waqtigoodana ciyaar iyo dheeldheel kuma dhaafi jirin. Haddaba waxaynu isku ognahay, waa haddii aad doonayso inaad noqoto dadka guuleystay, inaad waqtigaaga si wax ku ool ah, sikin aad uga faa'iideysato. Haddaba barnaamijkeena maanta intan ayuu ku soo yahay, intan ayaan ku soo idleynayaa. Waxaynu markasta isku ognahay inaad noqotaan dad guuleystay, guushana sababteeda aad keentaan, taasoo ah hawsha inaydan dib u dhigin, aad iminka qabataan. Wassalaamu calaykum.